السلام عليكم ليبان. وعليكم السلام. maanta waxaan rabaa inaa wax yar iiga sheegtid gobolkan Yiwu la dhaho. waa markii labaad aan xawaay igu soo casinto. waxaan isku imaanay last time waxaan ku kulanay Kwanzu. waxaan isaga isku yeelnay inaan inta isku soo raacno isku aragno mar kale. magaaladan Yiwu waa magaalo oo xawaay waxa ku taalo horta number 1 waa World Commodity Center. wax allaala wixii badeeco China soo saarto dhan waa magaalada la iskugu keeno. labo waa magaalo foreign-ka dhan ay ku badan yihiin ajaanibta. saddex waa magaalo community-geena meel walba iskaga imaadaan iskugu arkaan. community-geena Soomaalida, Soomaali ka imaaday Europe, America, Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, meelaha ugu tiro badannahay. waa magaalo inta jidka hal jidana ay u badan tahay magaalada from meesha ka bilaabato dhinaca Soomaalida ku soo degtaan Maida ilaa iyo moolka ugu weyn World Commodity Center la dhaho Fortium. halkaas jid waxaad ku arkaysaa intaas oo qof oo ku yaqaan oo ay si salaamaysiin. waxay kale leedahay waa magaalo islaamka ku badan yahay, almost 7 masaajid ka badan ku taalo. waa meesha China the hub of waxa waaye Muslimka China, khaasatan Somali community-ga isku arkaan. waa magaalo dadka markay u imaadaan ganacsi ha yaraadaan ha weynaadaan ay ku qancayaan. tusaale ahaan hadday tabartaada yar tahay oo container badan aadan qaadan karin, magaalo waa meel kaliya kuu suuragelinaysa inaad 5 karton, 10 karton, 20 karton containerada la dhaho loose cargo aad ku darsan kartid. containerada la isku dardarsado. waxaa magaalo hal saac u jirto textile oo magaalo la dhaho oo wada textile. waxaa la dhahaa Kajawa. waxaa lagu gadaa wax allaala wixii textile ah oo Soomaalida isticmaasho sida baatigii iyo daahyadii iyo wixii kale oo dharka lagu talanayo, shaararkii iyo cabaayadihii iyo wixii warshadihii soo saarayo dhan 1 hour ayay magaaladan u jirtaa. waxaa kaloo magaaladan aana ka fogeyn 1 hour u jirto shirkadihii ugu waaweyn China, dad meelihii lagu farm gareeyay sida Oppo iyo Vivo iyo maaragtay Alibaba iyo Hanzu la dhahaa waa 1 hour. so dadka waaweynka, dadka yaryarka, dadka ganacsatada oo maaragtay hadda soo koraayo, ganacsatada fikirka raadinayo, haddaad iska dhex gashid waxaa ku arkaysaa waxyaabo ka cajaa'ibiyo. tusaale ahaan suuqan hadda Fortium saakan ku dhex wareegayay. sanadkan waa sanadkayga 10aad aan suuqaas tagayo. every year waxaa ku arkaysaa wax cajaa'ib ah. device tusaale ahaan last year aan arkayay just a device oo AI translation ah oo lacagtiisu joogay $500 ayaa maanta waxaan ku arkaa tusaale ahaan wax $100 ka yar. waa magaalo fast ku socoto, wixii la arko horaa laga soo saaraa at the lower price. waxaa kaloo aad sanadkan loogu dadsanaa. sanadkii hore waxaa aad loogu dadsanaa boorsada hand luggage-ka oo scooter ahaan loo wato, aeroboorada lagu wato waa arkaysa. suuqan oo buuxa hadda asagoo price-kii ka raqiisan. 2 xabaa gadan kartaa, 3 xabaa gadan kartaa, 1 xabaa gadan kartaa. waa magaalo oo hadda toys-ka tusaalahan Kwanzu markaad tagtid warshadaha arkaysaa. laakiin magaalada markaa imaado waxaa arkaysaa meelihii oo jumlada ah centerkii oo alaabihii yaryaraa 5 karton, 10 karton, waxyaabaha qaarkood online-ka lagu gadi karo kale, waxyaabaha qaarkood oo dukaankaaga ku filan. marka taas waxyaabaha ay magaaladan cajaa'ibka ay leedahay. waa the hub of Somali community. haddana waxaad arkaysaa marka dad caadi u degan years and years magaaladan degan, almost 10, 15, 20 years oo maaragtay ku guursaday Chinese ku ilmo dhalay mix race Soomaaliya magaaladan ku arkaysaa. marka waxyaabahaas cajaa'ibka leedahay magaaladan. Okay. dalkan Shiinaha wuxuu leeyahay magaalooyin badan sida Guangzhou, Shanghai iyo magaalo la mid ah. ayaga dhan waa wada ganacsi. marka sabab ay Yiwu u noqotay magaalada ugu ajaanibta badan aa is leedahay. waa horta waa saan kuu sheegayay markaad tagtid every city waxay leedahay horta waxay ka shaqeeyaan inay develop gareeyaan every city wax specialization intuu sameeynayo.
waxyaabaha cajaa'ibka ee Guangzhou leedahay warshadihii ugu waaweynaa ku yaalo warshadihii aluminiumka ahaa oo wixii darashad ama steel ama maaragtay wixii lagu soo saarayo magaaladana waxa waaye waxyaabaha smallka ah wax allaala wixii China lagu soo saaro magaaladii isku keenayo waa lightningkii inta la keenaa small quantity ah marka daas waa waxyaabaha magaalada la isku imaado laakiin China sidee u hormariso the whole country every city sidee uga shaqeyso waxay sameeyeen every city waxay geeyeen specialization magaalo waxa arkaysa alwaax kaliya ku takhasus magaalo waxa arkaysa bir iyo aluminium ku takhasus magaalo waxa arkaysa electronic iyo gadgets ku takhasus magaalo waxaad arkaysaa so wax alla wixii magaalooyinkaas lagu soo saaro magaaladana la iskugu keenaa qofkii marka rabo tiro yar intuu ka qaadanaya qofkii rabo maaragtay inuu ka travel gareeyo warshad tusaalahan qof aan la heshiisay intaa ku aragto waxaa leedahay su-aalaha ugu horeeya weydiinaysid war ma waxaa tahay dealerka ma dalaal maa tahay mise direct from factory qofka hadduu ku dhaw waxaan ahay direct from factory magaaladee aa leedahay marka wuxuu ku leeyahay meel inta 3 saacadood u doorto ma diyaarada mise waa tareen markaas waxaa ogaanaysaa magaalada uu ka imaaday meeshaan marka waxaa waaye wada buuxo middleman oo dukaan u furan yahay agents direct factory outlets iyo warshado toos ah waxaa kaloo magaaladan cajaa'ibka ay ku tahay wixii dhan lagu soo dhaweeyo waa lagu soo kobo under one umbrella sida waa inuu 365 days oo bandhig ah oo socdo kale la mid yahay darad waxaan ka hadlaynay bandhiga dhexdiisa bandhiga waxaa ku jiro warshadihii oo dhan Jaanis kuma imaan karaan marka ay 3 phase ka dhigeen Canton Fair phase 1 phase 2 phase 3 magaaladan 365 days waa furanta hadda tusaalaha maanta waa maalinka shaqaalaha Labor Day waa baxay magaalada aad magaaladii wada furnaan tagay waxyaabaha kale oo cajaa'ibka ah ee leedahay magaaladan waxay tahay health care system oo cajaa'ib ah leedahay Soomaalida fursad waxay ku helaan intay shaqaysanayaan check-up ay sameeyaan caafimaadkooda dadka oo iska warqabo for example aniga waxaan ka warhayaa check-upka Turkiga qofka full check-up markuu sameeyo up to 1200 laga qaadaa MRI scan iyo CT scan iyo saaray maaragtay iyo baarista dhiigga iyo waxyaabahaas India sidoo kale check-up ay leedahay magaaladan baaristeedii iyo check-upkeedii inta badan Soomaalida fursadahaas ay ka faa'iideystaan waxaan arkay check-upkeedii baaristeedaba waaba $450 iyo $500 full check-up lagu sameeynayo top to bottom marka waa aad ay u horumarsan technology service-kooda waa dad u bisil inay maaragtay shaqo u bisil inay ajaanibtana aad ay inta maaragtay u soo dhaweeyaan waxa laga yaabaa magaalooyinka qaarkood inay gorilla camal ku arkaan kugu qoqoslaan marka tagtid nin madow ay ku arkaan laakiin magaaladan wax racism ah kuma arkaysid iyo marka challenges marka jiro waa waxa waaye waxa la dilgaranaysa ma taqaanid waxaa kaloo sii jiro maqaayadihii iyo meelihii cuntooyinkii islaamkii iyo xalaalkii aad ay tirada ugu batay meelaha kale waxaa aad u maaragtay waxa arkaysaa the whole day inaad socotid oo waxa cunto aaways dry fruits ama waxaa iska qaadanaysaa waxyaabaha fruitka meelaha lagu gado iyo mararka qaarkood wisuus iska kaa dilaya buskutka aad u jeedid sometimes ma cuni kartid waxaas leedahay animal fat ama ku jira ama saliidda doofaarka ama lagu shiilay laakiin magaaladan waxa waaye waxay leedahay maqaayado badan oo islaamiga every 2 step waxa arkaysaa maqaayad islaam ah marka accessibility-geeda wadankii oo dhan waxa magaaladii oo dhan waxay ku kooban tahay hal wado hadda si fidid waxa arkaysaa dhismooyin fara badan qurux waxyaabahaas waa si arkaysaa laakiin inta badan dadka inta jooga purpose-ka u joogan waa shaqo waxyaabaha kale qofkii rabo inuu hal maalin ka qaato vacation oo ka dhexbaxa magaalada waxay leedahay hiking ay leedahay buuro dheer ah oo aad u waaweyn oo dhir fiican leh oo maaragtay waxay leedahay fountains oo biyo soo dareera waxay leedahay beero oo sunflower gabalday ma aqaan sunflower-ka ka baxayo ubaxyo iyo greeneries fara badan oo maaragtay magaalada dhan 30 daqiiqo 40 daqiiqo drive u jiro marka sometimes waxa la dhahaa work pleasure life isku dhexdar shaqo iyo dalxiis yar xaqiiqda magaaladan ma aan dhahay completely China
marka la dhaho intay u aadaysa dalxiis waxa waaye meelahan jeclahay inaan soo aado waayo waayo hikinkeeda iyo buuraheeda iyo meelahan iska jeclahay inaan dhex socdo waayo buurahaas iska koraya waa iska dhex soconaysaa waxa waaye adkaartaada iska akhrisanaysaa waa alxamdulilah nimcooyinka ilaahay aa xusaysaa intaa buuraha saaran tahay so waa dhirtaas daawanaysa shaqo plus dalxiis maasha allah marka waa sidaas waa isku dhex wadaysaa shaqo iyo dalxiis sometimes maanta oo dhan adduunyo laguma jiri karo oo adduunyada intaa burinaysid adigaa dhammaanaysa maaragtay waa inaa markaa iska dhex baxday sometimes hawada dhan aad gashid jawi yar ilaahay iska xustid adigoo maaragtay buurahaas iska dul koraysid oo lugeynaysid oo hiking samaynaysid marka waa iska saas maasha allah waana leedahay entertainmentigaas Yeah? waana leedahay entertainmentigaas waa leedahay qurux badan so qofkii tusaale ahaan ilaahay u suurageliyey intuu wax ka bilaabayaa intuu jecel yahay China markuu imaado inuu wax ka bilaabo ka indheeyo wadankii uu imaaday wuxuu rabaa inuu arko macnaha kuwanzu weyninkay ka badatay here and there la kala jiraa inta marka way kooban tahay صح advantages ka leedahay waa kooban tahay qofka marka rabo inuu research sameeyo wax fahmo inta inuu ka soo bilaabo iyo ayaa aad u wanaagsan airportkeeda waa airport iska yar airport u dhow international jiro Hanzu la dhaho oo diyaaradan Qatar Airways iyo diyaarado kale international ay imaadaan oo hawsha dhan u fududaanayso qofka maaragtay research rabo inuu sameeyo inta inuu ka soo bilaabo Beijing waa capital city iyo Shanghai waa iska magaalooyin iska caadi ah warshadii waa leedahay laakiin it's not waxa waaye barbaska waxa uu ujeedada inta inuu macnaha imaado IDs ka qaato amazing aada u mahadsan tahay warbixin oo caadi ahayn naga siisay gobolka Yiwu marka aada u mahadsan tahay